السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد المسلمين تعمل كسي جوجان وحنكو سلامة يا سلامة إسلامك وحنو مهد لنا يا بعد الله تبارك وتعالى إذا عدى دنن أمد الصومالية سوى ناكشن أو قروح بدن أو شقينيسا قال هانا صاحبكي فرح لما انتين هذا أمهسنتين هذا أمهسنتهاي أنت سكدب وكود لوليو 1960 xilligii gobolada koonfureed ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga bal aragtidaada iyo halgamiyaasha Soomaalida dadka ugu caansan ee la dagaalamay Talyaanigii ee gumeysan jiray gobolada koonfureed soo dhawow waxaan horta u hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogan waxaan leeyahay hambalyo waa haween farxadeed waa soo socdan waxaan oo soo socoto maalin farxadeed sidoo kale farxadaas waxaan la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed anigoon kala qaadaynin waxaan ugu hambaleynayaa xurnimadii aan ka qaadanay qolooyinkii gumeystiyaalkii Talyaaniga gaar ahaan gobolada koonfureed waxaan adii Talyaani marba la sheegana waxa ugu horeeya dadka la dagaalamay ee ugu cad ee number 1 kaga jira waxa kamid ah beesha biimaal inta badan ay dadka qaarkood isku dayaan in ay qarqariyaan beeshaasi iyo halgamiyaalkaasi taariikhdood laakiin waxaan qarsoomeenin taariikhda ma ayada gacanteeda isku qorta uma baahna in la qorqoro uma baahna laakiin waxay xaq u lahaayeen ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dhan waxay ka mudan yihiin akorkood waajibka ay nimankaasi xaq ay ku leeyihiin waxa kamid inay taalo u dhisaan hadiisan u dhisina taaladooda sidaas ay ku wataan magaceedooda cid kasto Soomaaliya garanaysa beeshaasi biimaal ayaa u cadcadeed ragii hogaaminayay ragga ugu caansan hadaan ku magacaawna waxa kamid ah Macallin Ibrahim Kabtole iyo Sheekh Cabdi Abikir Gafley labadaas hogaaminayeen Talyaanina meel bay iska saareen muddo 10 sano ay u diideen inay badda ka soo degtaan ay badda xeebta soo istaagaan laga diiday marka taariikhdaasi way qoran tahay qaarkeed qaarka kalena ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaas beeshaasi hadda inta ka nool cunuga uu yar qalbiga ay u qoran tahay marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan la dagaalantay hadaan la dagaalamin ma jirtaba laakiin waxa xoogaan isniray dadka ugu cadcad markii la yiraahdo number 1 beeshaasi ayaa kaga jirta waxaan rabnaa si ay dadkan ay ugu bogtaan Gafley iyo Kabtoli nimankii ugu caansanaa koonfurta Soomaaliya markii la yiraahdo Talyaaniga ee la dagaalamay ma qasana horta Talyaaniga la dagaalamayay dhinaca jilib marka ilaa iyo marka inta u dhaxaysa waa la sheegaa in kullu uu shabeellaha hoose ma qasana ayaa halkaas lagu la dagaalamay Talyaaniga sida hadda ay culumada noo sheegeen taariikhdaasi beesha inay jihaad ahayd inta badan waxa soo wariyaan rag culimo ah dad kale lagama hayo inta badan culumadaas soo wariyeen dagaalkaasi u dhaxeeyay Talyaaniga iyo beesha biimaal ugu yaraan 12 sano socday waa 12 sano ayuu socday dagaalkaasi u dhaxeeyay beesha biimaal iyo Talyaaniga markii dambana beelalkii jaarka la ahaa ay kamid yihiin sheeqaal iyo dad badan oo meesha joogay wacdaanka kulli ayaa Soomaaliyeedna markii dambe ku biirtay laakiin ugu yaraan 12 sano ayuu biimaalka kaligiisi difaacay gobolka Shabeellaha Hoose waa gartay 12 sano ma yara waa 12 sano waa 20 sano wax yar dhiman marka intaas oo Talyaanigu ay la dagaalamayeen beeshan taariikhdaasi aad u fog dadku ku dhintay tira ahaan wax ma lagu ogyahay والله ترى أهان هذه اللي يراهدو لما قياسي كرو لما نسوكوبي كرو وايو ضدن إيو Talyaanigu asan dadka ay wada garanayaan oo xilligaas dawlad xoog la ahayd ayaa dadkii meesha la dagaalamay hadana waxyaabaha dadka dhameeyay waxa kamid ahayd dadka dagaalamayay waxay ku dagaalamayeen seefaf iyo waran ayaa ugu badnaa waxay ku dagaalamaan qoryaha markaas aad bay u yaraayeen rag yar baa haystay laakiin dadka ugu xoog badan seefaf iyo waran iyo ala la dagaalamayay marka dadkaas lama qiyaasi karo laakiin sida culimada soo wariyeen mararka qaar waxay dhici jirtay boqol rag in hal qabri lagu aaso marka meesha laga dareemi karaa hadii hal qabri boqol qofood lagu aasay
qabriya inta qabriyo kale oo dadka lagu aasin meesha laga fahmi karaa marka dad badan ayaa ku dhintay lamana qiyaasi karo lamana soo koobi karo inta meesha ku shahiiday anigoo u hambaleynayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha bimaal ugu cadcaday dagaalkaasi Talyaaniga ee gobolka Shabeellaha Hoose kulligiin waxaan leeyahay mahadsantihiin laakiin waxa laga marmaan ah inay ogaadaan ana xasuusiyo ragga maanta hoggaanka isku sheegaya misna ahba hoggaanka beeshaasi bimaal in ay taalo u dhisaan raggaasi dagaalamay xaq u leh in taalo loo dhiso ragga magaalada Muqdisho taalada looga suray kama xaq badno raggaasna way dagaalameen anaga ma dhahayno ragga taalada Muqdisho ugu suran dad dagaalamay maahan anagu ma dhahayno way dagaalameen xaq bay u leeyihiin way mudan yihiin in taalo loo dhiso laakiin sidoo kale Sheekh Cabdi Abikir Gaafley iyo Macalin Ibrahim Kabtole waxay xaq u leeyihiin inay taalo u dhisaan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose dawladda Koonfur Galbeed gaar ahaan gadoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow in ay raggaasi taariikhdooda nooleeyaan ummad aan taariikh lahayn waa ummad aan dhalasho aan asal sax aan lahayn weeye taariikhdii in la duugo la qariyo taasi waxaan u arkaynaa in dadkaasi iyo dadkii ka dambeeyaba in hoos loo liidayo marka waxaan ka codsanayaa dadka mas'uuliyiintaas oo dhan inay dadkaasi sidii dadka kale culimadayni kale uu ka mid yahay sayidka iyo dhagax tuur raggaasi sida taalada loo dhisay ay u mudan yihiin in ayakana taariikh loo dhiso taalo Sheekh Cabdi Abikir Gaafley iyo Macalin Ibrahim Kabtoli ilaahay ha u wada naxariisto labadoodaba sidaasan aan ka codsan lahaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda waxaa jira rag badan oo halgamyaal ah oo taalooyin loo dhisay waxaa ka mid ah Axmed Gurey waxaa ka mid ah sayidka Xawa Taako inta badan halgamiyaasho dhan taalooyin ay leeyihiin xamar meelo badan baa maartay taalooyinkoodii ay caan ku yihiin oo ay saaran yihiin raggan hadda aad ka soo sheekaysay meel taalooyin ayaga ah oo ay suran yihiin lama arko maxaa sababay ما شاء الله فرح وأداء مهتم تهي وأنا سؤال آد مهم رجعني شيخ عبد أبيكر قافلي معلن إبراهيم كبتولي هجامياشا بيش بيمال إلى دجالنكا جمستيه تلياني وحا تعالى لو دسوايي horta marka hore dadkoodii iskuma buraarujinin dawladii dalka soo marayna ma ogolayn in beeshaas magaceeda amba horumarkeeda iyo halgamayaalkeeda in kor loo qaado dadka la ogeysiyo maysan ogolayn maadaama ay ka soo jeedeen beesha direed lamana ogolo in magacooda kor loo soo qaado sidaas ayaa loo diiday dadka ay sheegtaan iska wadaay in taalo loo dhisay qaarkood iskuulal bay ku magacaaban yihiin waana wada garanaynaa dadkan laakiin waxa ugu horeeya hoos u dhigay aan maanta ku eedeynaya aniga baan kamid ahaade dadkoodii ka dambeeyay ay ka dhaleen baa ugu horeeyay dadkii hoos u dhigay ka hadli waayay dawladiina maba ogoleenba sidaas bay ahayd waxa kamid ah waxyaabaha ajaa'ibka ah aan taariikhda markaan dib u baarnay aan soo ogaanay al-Sayyid Axmed Gurey ninka la yiraahdo taalada magaalada Muqdisho saaran waa nin dir ah akashi ah lawadana garanayo oo dadka dhan ay wada yaqaanaan laakiin Soomaalidu beelal kale ay ku sheegaan qoloba wax bay ku sheegtaan ma ahan hal qabiil bis haduu haysan lahaata warbu ahaan lahaa laakiin dhowr qabiil baa isku haysato laakiin markii aan si fiican u soo baarnay aan soo ogaanay waxa xaqiiq noqotay inuu yahay nin dir ah ahna akashi maxaa marka maadaama la yaqaano reerka uu ka dhashay maxaa beelahan kale too sheeganaya halkay ka yimaadeen beelahaasi waa sida aan ku sheegay beelaha aan ogolayn in beesha direed magacyadeeda la maqlo beelaha aan ogolayn weeye marka sidaas baa ayakana ninkii oo aan la qari karin Axmed Gurey wuxuu ka mid yahay nin aan la qari karin buu ahaa marka waxa maadaama ay qari waayeen waxa qasab ku noqotay in ayaku ay sheegtaan qoloba ay sheegato laakiin waa nin la yaqaano reerkiisii ilaa hadda ay joogaan waa nin la garanayo marka waaya Sheekh Kabtoley iyo Gaafle halgamiyaasha ah dadku
ma yaqaanaan meesha ay ku aasan yihiin, intooda badanba ma yaqaanaan. Marka halkee bay ku aasan yihiin? waa su'aal runtii aad u muhiimsan. labadaasi halgamayaalku way badan yihiin, laakiin ragga maanta ugu cadcad ee hogaaminayaan soo qaadanay Mucallim Ibraahim Kabtole iyo Sheekh Cabdi Abikir Gaafley. labadoodaba halgamaa waaweyn bay ahaayeen, lamana qari karo halkay ku aasan yihiin iyo meesha kulli waa la wada garanayaa. Sheekh Cabdi Abikir Gaafley Shabeellaha hoos uu ku aasan yahay, qabrigiisana waa la garanayaa. laakiin Mucallim Ibraahim Kabtole ugu dambeyntii xajku aaday, xaramka markuu xajkiisa gutayna halkaasuu ku geeriyooday, xaramkuna ku aasan yahay.